السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشنا عاشكين وإلهي ما هدي عن مرة لبعض مر سدحات مر أفراد الصلاة عبني نيجو نبضة يدينكو نبضة وإلهي ما هدي أصحابي هدي أنتنا الكعصب تهي لايك شير سبسكرايب وحاجة وحي سو قدبلنا وحاجة أصحابي ما أنتم حرمائنا إدين سو شيء قصدي أد كأوهشين أو إن بدن أو إدين كأ عادي قصة عصتين وترحدين وتياز حسوسته نو سو ددتشي dalabkiina ayaan maanta rabaa inaan kugu dhamaystiro qaybta saddexaad waxay inoo maraysay gabadhii cadar ahayd oo maxay ahayd ninka kabtanka ahaa uu kusoo xumaaday gabadhiyo maxay ahayd niyad jabsan ninkii rabo inuu gabadhii ka tago maadaama uu helay gabadhii uu jeclaan jiray oo isku iskuulka ahaan jireen bay inoo maraysay qisadu waxaa dhacday ninkii kabtanka ahaa habeenada ka mid ah buu u yimid gabadhii cadar ahayd guriga wuxuu yiri walaalay aniga waxaaba ila fiicnaatayba in aana isqasbin aniga adigu maadaama aan ahayn dad la isku daray oo aynaan isjeclaanin wax jacayla meesha oolin waxaan qorshaystay inaan walaalay shid la'aan iyo dhib la'aan aaban kuu fasaxo macnaheedu aan ku furo weeye arrintu asikaa fasaxayaa waxbana ha iska lafin adiga xitaa waxaa laga yaabaa dhankaaga inaadan jacayl ii qabin oo waalidka ma aragtay hadalkiisa daraaddeed adigu guursatay oo wax jacayla meesha oolin marka walaalay markhaati u yeero ama waalidkaa ii soo dir aniga dhankeyga waa ayaga kaa soo dhammaatay wax rabitaan iyo niyad la yiraahdo ma jiraan waa isakaa fasaxay aabbahaa ii soo aadi familkiina ii soo aadi xataa markhaatiga ay keensan kartaa saas buu yiri ninka kabtanka ahaa gabadha cadareed waagaa ku baryay muusig baa ku yeertay indhihii bay kala taagtay yaah maxaa tiri walaalow maxaan dhiban kuu geystay anigu maxay tahay sidaa sharafta iga qaadaysid maxay tahay karaamadradan saan bini aadannimo ma aha hadalkaas cadar waxay ka keenayay jacayl ay ninkan u qabta ma ahayn balse waxay ka baqaysay bulshada gabdhaha asaageeda ee magaalada dhinaca ka degan in ay ma aragti yiraahdaan gabadha shalay la guursaday oo ninka madaxda ah guursaday way maanta loo soo furay maxaa dhiba oo jiray gabadha maxay u qarisay ninka maxaa lagu arkay dee Soomaaliya waa taqaanaa gabar muddo yar la soo qabiyo la soo furay 114 iimood baa loo yeelaa intaas ayadoo ka baqaysa bay waxay tiri cadar walaalow maxay ahayd anigu kaa midintan maxaa igu dhibsatay wixii dhibo jiray ii sheeg wixii ma aragtay waxaad tabanayso wax ii sheeg maya walaalay inaan isqasabno maba ahanba sideedaba ninkani dee nin meelo caddahay meel ka madow ninkan waxaa u muuqata gabadhii uu jeclaan jiray oo uu soo arkay oo kusoo arkay magaalada baa u muuqata marka wuxuu rabaa si uu gabadhaan cadara ku furo dee waabay furan tahayba cadana wuxuu yiri macsalaam sasaan kugu furay walaalay haddaad doontana aabbaha soo aadi ha ii yimaado anaa u dhamaystiray arrinteed adigana iska raalaha walaalay wixii mehelo adigu lahayd iyo ma aragtay anaa ma aragtay kaa daba keenaya ee gurigiina iska aad gabadha cadar ahayd iyadoo madluunsan oo hoos fiirinaysa oo niyad jabsan oo meel laga sar lahayn bay gurigood kusoo laabatay hooyadii u timid gabadhii ooyin bay jabsatay ooyo waa kana maxaa leeyahay dadka magaalada maxay leeyihiin gabdhiha saageega maxay leeyihiin waxaasoo dhan ba idinkaa ay keenteen haddaan shalay idin diidi lahaana waxaa dhihi lahaydeen gabadhatan waa gabar xun oo waalidkeed maqlaynin marka waa kana waalidkey waa kana balantaa ina arka habarti waa calool xumaatay cadar hooyadeed waxay tiri maxay ahayd hooyo saan adigu qof xun ma tihid gabar fiican baa tahay gabari kaama horeysa dee hooyo waa taqaanaa gabadheeda niyaday u dejisay waxay tiri wax ka halaabay ma jiraan isdeji maandhay aabbaha markuu yimaado baa un diraynaa ninkan okay gabadha gurigooda isku joogta odagaa yimid oo odayga cadar aabaheedo soo baalkii bakoortiisa wadoosaa ka siinaya jag haye odayow waxbay bakoor dheeraan anige halkaa soo fadhiiso maanta warbaa jireen wixii dhacay moogta gabadheena ninka xunka ahaa ood keentay ood shilimaanta xun ka qaadatay tuu ku dhigay ma ogta maxay tahay sheegtay anaga aamus waxaan loo joogin baad ka hadashaay
naga maxay tahay wax sheegaysa maxaa dhacay wiilku waa wiil wanaagsanoo waa anigii maalin hore hadlayo wuxuu yiri gabadha wax u sheego dee gabadhaada wax u sheeg waryaa gabadha waa lasoo furay tiri haddaa fadhi lahaydna fadhi haddaa taagnaadan taagnow haddaa rabtan seexo meesha tan wax gabadheena u yaalla haba yaraatee ma jiraan maxaa tiri soo furi karaa gabadhayda si sharaf laan ku siiyey shalay anigoo maxay ahayd odayaal iyo dad buu odag meesha iswaal odayo istartiibay tiri iswaal meeshan ma shaqeeye gabadhi lagu furiye yaa meelkeed uga soo qaat odaygii dheegii baa ku karay xanaaq waxa dulliga ah waxa doqonka ah waxa kan ah waxa maxay taraysaa jaa gabadhi la furiye shaagada markay halkaa marayso gabadha cadalaheed waxay tiri magaalada tardhuusa mareeb maba joogayo anigu waan ka tegayaa wejiga ma siin karo dadkii dhan maxay ahayd hadal qaradayga aaminsan yihiin gabadhi shalay saddexdii bilood lasoo qabo lasoo furay waa maxaa la ileeya anigu waaban tegayaaba hooyo iyo aabi ii duceeya anigu xamar baan aadayaa magaaladan ma sii joogaayo gabadha waxay isku dayeen waalidkeed inay ma aragtay joojiyaan oy dhahaan maandha isku joogo magaalada ka kortay waa ninkaan hadduu kugu xumaaday gabar yar baa tahay nin waa iska helaysaa isdaji maya soo istaagta cadar waa inaan ka tagaa magaaladan cadar way kasoo amabaxday magaalada muqdisho soo aaday magaalada dhuusamareeb waxay tiri macsalaamo dhuusamareebey ani adigu nagu kala wad baa ka dhacday cadar xamar bay timid gabar ay qaraabo ahaayeen bay u timid ee gurigeeda kusoo degatay waa gabar dugsira soo dhammaysay gurmud iyo wax walba diyaarsan shaqee loo raadiyey waxay cadar shaqo ka haysay bangiga ganacsiga la dhihi jiray soomaaliya xamar ku yiilay bay shaqo ka haysay gabadhay cadar ahayd shaqo kaaliska arago meel dhanba qayb dhan oo maxay eeto madax looga dhigay maalin maalmaha ka mid ah baa iyadoo lugaynaysa meesha abradoodka la oran jiray ninka yaqaana magaalada muqdisho ayadoo lugaynaysa gabadhii cadar ahayd oo socota iska soo leersanaysa waxay isku hor yimaadeen gabar ay cawaale qaraabo ahaayeen cadareyna iyo waran waa nabad haye oo maxaa kasoo danta xamar soodagii ninkii madaxdaha ku guursadayoo lagu aroosaya wiilkeenina aad xumaysay ood ka tagtay oo shilimaan ka door biday naa iga aamus kuma warrami kare maxaa dhacay intee nin madax wax jiraan ma jiraan aniga waa lay soo furay ninka wuu xumeeyey sharaftiibu iga qaaday walaalay hadda istaag kuuma sheekayn karee bal sukaay keeno noo kaale xaafadda ma garan kara meesha ka shaqaysa bal ii tilmaa halkaas bangi ganacsiga dee qof walba u yaqaanaay bangi ganacsiga igu imow okay halka bay ku kala tageen gabadhi daf inta tiri waatana orod jabsatay wiilka cawaalo ah raadisay war cawaalo warkan ku hayo maanta maxay tahay warkaa iyaysid maanta waxaan soo arkay gabadhi cadarahayd yaa أنا نفعت شعب مركز بيرك سأقعد قادمة نعم حاطر عذر ما هي بعيار وركو بعيار ما عذر حمل كل جوكا هيا لفريو نيكو حمايو ده وحي بيشدا وقفت وحي هذا الآن شاكي أنك شاكي دافن أصحابي ويلكي عوالقها وحو شقك هالي سفارة مريكنك لأني كانوا وانين كليد لقلها كصبحيو إنجليزي إيطالياني إيو عربي صدح القود ويران كحدله ميل سفارة مريكا شغل لقسي عوالي يوانين كان حيرنو بابور نوع قدم بي وطلقوا هدي عيال سكول كويل معها نك مكان عوالي وعشرين بس وحي لحكيت سوكتا عذر وحي كشقيسا بانجي جانسيغا بي كشقيسا هالكاس كراري ما يسقى بالسوقي ما علمت كحكت داي أرض بالصوتات وكان سو استاج بنقي أويلك عوالها ماشي وحي مثل ريسبشن محن قص هاي ما محد راه محرب قبل الليل هذا عذر مياها مقعيس كداي وحان ربا قبل عذر وقحشود إنه مقعيس وشاو تلفون بالقبص دك هاي عذر ويل باكو جوه مقعيس إنه مو شيء كله كحير وحن رأينا عذر soo daay soo gudbiye markii la soo gudbiyey mase waa labada qof indhaha la isku dhuftay muusikaa yeertay meeshii dhin indhas jecel allah markaasaa labadoodii saas midooba meeshiisa ku qaboobay dhin hay
cadar war cawaale mee warrab fiican tahay meesh baa laisku waraystayo walaalay waad xumaysayo warkuma xumeynaba waa lay xumeeyey adigu sheeke markii lasoo waraystay kadib waxay ku heshiiyeen cadar iyo cawaale inay mustaqbalkooda meeshii kasii wataan bas hawsha way dhammaysteen waalidkii iga doonay tiri waalidkii baa loo yeeray ciddii dhusumreeb telefon baa loo diri waa yimaadeen reerkiyo hadda wejigabax maxaan ku irahdaa ilaan shalay wiilka naga kaxay wiilka xunkaa ciyaal iskuulka see gabadheen ciddi weji uma hayaan laakiin wiilku wuxuu yidhi waxba idin ma qabo maadaama aniga gabadha aan jeclaa ay maanta i rabto si sharaf la ii siiya gabadha halkii baa waxaa ka dhacay aroos cadar iyo cawaale jacaylkoodii dib bay u hantiyeen sheekadeena wejiyaal isxasuusta asxaabay maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu